كسودة حنين حسال هاي قبتيسي لبات وحاركين تريشدو إيمانيسا أطورا وحين وشيغيسا وكروغو إمادو وحون أسن اللي تنوي والان دايرونتي waxay ku sugaysaa dabaqa meesha fooqa u sareysa wuxuuna u imaanayaa tiriishada wuxuuna weydiinayaa waxay ka rabto waxayna dhehaysaa waxa u baahnay inaa waxa uu ku siiyo isin wuxuu dhaa ma iga heshay idan ma ayay dhehaysaa waan ka qaadanaa jaakadkiisa waxaynu sheegaysaa inay shalay iskuulkii dambeysay isna wuxuu dhahayaa ma ku fahmay waxaa ka hadlayso waxay ogaanaysaa halkaas inaysan sirteeda ogeynin wayna soo cararaysaa si ay ugu bixiso buugga waxayna dhehaysaa keenan wal waxa alaabta gabdhaha ay ugu jirta ayay dhehaysaa isna u daanaya musqusha ayay soo aadaysaa dhankan markay guriga imaato waxaa soo wacaya Tooreen wuxuu ku dhahayaa waa inay alaabteeda ii keentaa ayuu ku dhahayaa siduu dhaqsiyaad badan waxay dhahaysaa maanta waa xanuunsanay mise guriga locationkiisa ii sheegay u dhahayaa inaa ku keenaya waxayna ku wareeraysaa midka u baahan jaakadkiisa mise buugga iyadoo wareersan waxayna soo bixaysaa waxayna madax soo gashanaysaa koofiyadii Tooreena labaad wayna u imaanaysaa waxayna dhahaysaa maxaa u baahantay markaas wuxuu dhahayaa isii alaabteeda wuxuu dhahayaa buugga isii ayuu dhahayaa markaas bacdi way fahmaysaa inuu buug garo markaas wuxuu aanaysaa gabadhii makeup-ka la'aanteeda inuu ka wada mas-uuliga ay soo haysaa makeup-ka ay iska soo dhaqaysaa wuxuuna dhahayaa waxyaana biyo ah wada cabin ugu dambeyn tiriishadii waxay kusoo laabanaysaa gurigeeda iyadoo wada badaalan waxaa arkaynaa subaxii dambo waxayna Tooreen u keenaysaa jaakadkiisa waxay fasalka albaabkiisa kaga hormaanaya Tooreen labaad laakiin wuxuu dhahayaa ma fiicantahay lugta ay wax ka gaarsiiyeen iga leexaynaysa gabadha maxaa ka qaldan intay ku arkay ayuu dhahayaa waxaan soo xasuusanaya habeenkii meeshuu ku arkay maadaama ay isku xanaaqsan yahay Tooreen labaad inay si xun u ciyaaraan kubadda wuuna iskaga soo tagaa Tooreen labaad si lama filaanaya kubadda tiriishada ay agtiisa imaanayso wuxuuna dhahaysaa madaxa wax la kaaga dheerow laakiin intuu ku mashquulsanaa wax madaxa ugu dhacay kasoo cararaysa laakiin way ku faysaa Tooreen uu kor tiraabsanaya asxaabteeda ayaa caawinaya waxaa arkaynaa tiriishada saaxiibteed waxay dhahaysaa maanta waa maalinkii 100aad ee sanad guuradeena maanta isna xalay u diri fariin laakiin muusan iga soo jawaabin laakiin si lama filaan ayuu u sameynayaa surprise ah wuxuuna ugu hambaleynayaa midaas tiriishadana waxay dhahayaan kooxdii shumiya intay shumina wuxuu dhahaa ka joojiya tiriishada ayaa toortada wajiga loo dhufanaya waxayna bilaabaysaa inay dhahdo kala sigta waxaa arkaynaa tiriishada intay soo cararaysa Tooreen labaad intuu ka wax xiranaya wuxuu ku garboodaysa wuxuuna dhahayaa gabadhan waa la yaabay dhawarka iga jibisay waxayna soo galaysaa saqalada musqusha wiilasha wayna kasoo cararaysa asxaabteeda amaan waa kaa tirtirayna ayay dhahayaan waxayna galaysaa xasuus markii wajiga ay ka arkaan sidaas inay ku caayin doonaan waxayna bilaabaysaa inay ka murugoto asxaabteeda aad waxaa imaanaya si lama filaan ah Tooreen uuna soo badbaadinaya wuxuuna ku qarinaya jaakadkiisa meesha ayuuna kasoo wadayaa asxaabta kalena way aamin la yihiin maamulahan wuxuu ku dhahay intaa caawinaysa saaxiibtii miya ku qoslaysa ayuu ku dhahay tiriishada waxay bilaabaysaa inay suuliga imaato Tooreen labaad wuxuu dhahay maxaa rabtaa mar walba in lagaa sheekeeyo Tooreen wuxuu dhahay aniga faraha iga qaad tiriishada qof sii jeesan ayay waxay bilaabaysaa inay u mahadceliso laakiin wuxuu soo jeesnaa wuxuuna dhahay koofiyadeedii ka iin way kasoo cararaysaa waxayna imaanaysaa galaaska wuuna ka raaligelinaya wuxuu ku sameeyey wiilka waxayna dhahayaan waa markii ugu horreysay uu caawiyo qof sababtuu ku caawiyo macallin maamulaha ayaa soo socday ayaa u malaynaya waa si qurux badnaatay dhacdadan ayay dhahayaan asxaabteeda waxaa arkaynaa tiriishadeen waxay soo aadaysaa dhanka walaalkeeda waxayna bilaabaysaa inay soo wado oo ayna keentay meel waxayna dhahaysaa buu muxuu ii caawiyo kula tahay wuxuu dhahay waxaa laga yaabaa inuu ku ogyahay mise inuu ka aargoosanayo si uu kuu dilo waxay dhahaysaa sabab laakiin oo ii aargoosanayo wayna iskaga soo tagaysa asxaabtiisa ayaa wuxuu imaanaya waxayna dhahayaan gaal fareentaada miyaa isna wuxuu dhahay soo jecel ma lihidin ayuu dhahay dhan kale waxaa arkaynaa tiriishadii waxayna imaana qolka library waxaana sameynaya tijaabooyin waxay si fiirinaysaa Toora waxayna ka arkaysaa hindiga socda waxayna isku naxaysaa macluumaadka waxay weydiinaysaa inay fiican tahay dhanka banaanka ay soo aadaysaa waxay arkaysaa Toora oo vampire isku bedel inuu dilana raweyn kasoo cararaysaa asxaabteeda waxay weydiinayaan inay fiican tahay isna wuxuu dhahay mar walba maxaa iiga carartaadi wayna ku qoslaysaa way soo bixaysaa gurigeeda soo socda waxaa arkaynaa Toora oo sii arkaya wuuna soo wacaya wuxuuna dhahay si ugu dhaqsiyaa badan inuu imaamo meesha library-ga waxayna dhahaysaa waxaan soo ogaadaa inuu dabagalayo in kale tiriishadeena waxay soo aadaysaa dhanka iyo maktabadda waxaana kusii sugaya Tooreen wuxuuna u keenayaa macmacaan wuxuuna dhahayaa waa ku mahadsantahay buuggan aad ugu raaxaystay ayuu dhahayaa waxayna dhahaysaa dharkan aad ayay ugu shidan tahay wuxuuna dhahayaa waxaa jirta gabar oo isku egtihiin oo iskuulkeena dhigato waxayna dhahaysaa tiriishadeena runtii isna wuxuu dhahay iskuulka aad ayuu dhahay iyadna waxay dhahaysaa waxaa iskuulku yaal waqooyiga baala meeshan wuu ku fogeeya ayay dhahaysaa
tirishada hooyada meesha imaanaysa waxay dhahaysaa meesha kasoo tag waxbarasho ma kuu dirin bas inaad joogtaa. Tirishada waxay dhahaysaa aniga waa gabadhaas maxaa iga qaadi kartaa ma sheegaysaa. Marka ay dhahaysaa waxaa arkaynaa Atooreen wuxuu imaaday guriga wuxuu ku arkay gacantiisa baakada iyada iska leed. Waxaa arkaynaa maalinkii intaysan ka qaadanin wuxuu arkay buugga meesha ku jira ugu mahadcelinaysa inuu sirteeda qariyay. Asxaabteed ayuu lambarkeena kasoo qaadanay. Habeenkii markii ay kulmayeen wuxuu soo dawraaca wuxuuna u imaanay suuliga wuxuuna dhegeysnaa iyadoo dhahaysa foolxumada dhib badana. Waxaa arkaynaa tirishada inay guriga baagisay farsoodina ay dhaho iskuulka iga bedelo guriga maxaa kasoo uraya ay dhahaysa wayna sii dhaafaysaa. Dhan kale walaasheeda imaanaysa waxayna dhahaysaa walaasheed tirishada waxay dhahaysaa igu boobsii mindi andan walaasheed guriga maxaa kasoo uraya ay dhahaysaa. Subaxii dambe markii la gaaro tirishada waxay diyaarinaysaa quraac hooyadana waxay dhahay maxaa la suuxsantay aabbaha raaxdo ilkaha dheeraa ay dhahaysaa. Hooyadana waxay dhahaysaa bax walaashaada u soo baxsaa u wada quraacana waxayna soo aadaysaa qolka walaasheed. Waxaa arkaynaa Atooreen waxayna usoo diraysaa kulmi karnaa waxayna soo aadaysaa. Hooyadana waxay dhahaysaa ma quraacanaysid miyaa. Waxay dhahaysaa aamusa maanta qof ayaa soo dili rabo. Aabbaheena wuxuu dhahayaa hor u soco guula kuu rajeynaya tan way waalata ay hooyadana dhahaysaa. Tirishadeen waxay wacaysaa Atooreen asna wuu istaagay waxayna soo aadaysaa dhankiisa waxayna ku riyoonaysaa iyadoo soo jeedinay dilaysa camal. Ugu dambeyn waxayna bilaabaysaa inay barido ay dhahdo wuu ku baryaa qof u sheegin sirteeda. Atooreen wuxuu dhahayaa maxaa ii sameynaysaa ayuu dhahay. Iyadana waxay dhahaysaa wax walba oo aad jeceshahay ayaa kuu sameynayaa. Dhan kale waxaa arkaynaa tirishada walaasheed waxay fiirinaysa ay taagneed meeshii ay ku arkaysay macalinka tirishada. Waxayna isweydiin sababtay meesha u joogtay laakiin ugu dambeyn waa arkaysaa waxayna dhahay waa nasiib badanahay waxayna soo bixaysaa ma ku caawin karaa ayay dhahaysaa. Wuxuuna dhahay qalada xabiiska ayaa waxay dhahaysaa intay imaanaya waqti badan waay ay dhahaysaa waxayna bilaabaya inay xaliyaan. Waxaa arkaynaa dhan kale Atooreena waxayna soo ordaysaa wayna ka xiraysaa daaha iftiinka uu soo galay waxay dhahaysaa aniga kuu joogaa isdaalina boowe. Dhan kale waxaa arkaynaa mudan ahaan mise macalin ahaan uu keenay tirishada walaasheed biyo wuxuuna dhahayaa waa ii xalisay ugu mahadcelinaya. Waxayna dhahaysaa qada ayay u casuumaysaa ayay dhahaysaa lambarkii ayaa ku siinayaa. Markii lambarka u qoraysay wuxuu dhahay maasa ayaa ii kacay markii labaad ee maasa ka kacaysan iyadoo isku qabsanaynaa ayay dhahaysaa. Maxaa ula jeedaa ayuu dhahay. Waxay dhahaysaa waa kuu dhameeyay maalinta kuma waxnaato. Atooraan wuxuu soo qoraya tirishada oon ay ahay u soo qoray waxay dhahaysaa suuli ayaa u baahanaya ayay dhahaysaa wayna baxaysaa waxayna soo aadaysaa biyaha ayayna u keenaysaa wayna iskaga tagaysaa. Dhanka kale waxaa Atooreen labaad isagii saaxiibadiis iyo isla joogaan tirishada ku dulaca wuxuuna dhahay shima ii keenaysaa koofiyadda tuugayaysa. Iyadana waxay dhahaysaa waa kuu keenaya sida uu dhaqsiyaa badan. Waxaa arkaa tirishada saaxiibteen inay arkaysay. Atooreen saaxiibkiisna wuxuu dhahay gabadha aniga ka helay oo ku qabsanaya maamulaya u imaan wuxuuna dhahay geedusiyada xirxir waxaa sida arday camal u dhaqmo ayuu dhahayaa. Tirishadeen waxay keenaysaa meeshii loo baahnaa Atooraa wuxuu u diray inay gees ayay keenaysaa wayna u sheegaysaa inay geesa meesha uuna dhoola cadeynaya waxaana u imaanayso soo jiin waxayna dhahaysaa muddo sanad markina adoo dhoola cadeynaya marka ku arkay adoo dhoola cadeynaya hadda istaagay ayay dhahaysaa waxaana kasii tagay ayay dhahaysaa waaba kaanii jabay. Waxaana loo soo diraa caawa inay isla cashayna sida u dhaqsiyaa badan guriga ma wax halkaas inay ka heleynaya arkayna saaxiibteeda ayaa u imaanaysa waxayna dhahaysaa maxaa ku daaray waxay dhahaysaa waa fiicane. Dhan kale tirishada arkayna waxayna raadinaysay koofiyadda Atooreen labaad la aabbaheed wuxuu sheegay inuu walaalkeed gatay. Walaalkeed ayay u imaanaysa dagaal ayaa bilaabanayo. Aabbaheed wuxuu dhahay iska daa hooyo ayaa imaanaysa waxayna dhahaysaa qolkii fadhiya ayaa isku garaacaysa soo ma aabbahay waxay dhahaysaa keen qalabka waxayna ku tuuraysaa boorsadeed. Walaaleen waxay bilaabayaan inay heshiiso ugu celceliyay midba midka kale u dhaho ku jeclaa. Waxaan arkaynaa tirishada inuu Atooraa soo dhahay buuggii soo qaatay iyadoo buug ku imaanaysa maktabad. Waxaa arkay wiil yariis oo qaatay ugu horaantiiba wuxuuna dhahay wiilka jaraatay isoo ka jaraatada ayay u galaysaa. Waxayna dhahaysaa Atooraan wuxuu soo qoray waqtigii uu ka dhamaaday isna wuxuu dhahay si ayay dhahaysaa waxayna dhahaysaa may waa kuu diiday. Budda wuxuu keenay ayay dhahaysaa waxaa ku ballan qaada waa kuu sameeyay waxa ay weydiisteen markii dambe uu kasoo ogolaanaya wuxuu dhahay waan soo siinay Atooraa. Dhan kale waxaa arkaynaa tirishada u imaanaysa Atooreen labaad waxayna dhahaysaa koofiyadda ayuu dhahay wax walba inta warqadda kuu soo qoray ayay dhahaysaa akhris. Saaxiibadiisna waxay dhahaan warqad jecel ayaa loo soo qoray way u fadhisaa ha akhrisay wuxuu dhahay waxay kuu soo qortay sheegay in iga leexda ayuu dhahayaa. Dhan kale tirishada walaalkeed ayay u imaanaysaa waxayna weydiinaysaa koofiyadda inuu helay. Atooreen wuxuu u soo diray koofiyaddiisa waxayna u keenaysaa. Tirishada asxaabteed waxay u soo raacayaan si u wada qadeeyaan. Waxaa arkaynaa tirishada salam filaan wax loo soo diray waxayna dhahayaan asxaabteeda sug ayay dhahaysaa meel soo xararay waxay dhahay maalmaha wax ayaa ka qaldan cunugta ayay dhahaan. Waxayna arkaysaa Atooreen labaad ay isku dulacayaan. Waxaa arkaynaa inay saaxiibteed ay korka fiirinaysay waxayna u malaynaysaa inuu isaga carqaladeynayo wayna u imaanaysaa waxayna dhahaysaa maamulaha ayaa kuu sheegay hadaa joojimaysid musuqmaasuqa iskuulka ka wadid
gabadha maxaa kasi ayuu dhahay dhanka tirisha toora imaanaysa waxayna weydiinaysa waxay sameynaysa wuxuu dhahay waa in cuntada kuma mardid kara waa asturay dheesa toorana wuxuu ila cunay dheesa uu diiday laakiin markii dambe uu cunay maxan waa ayuu dhahay waan isla cunaynaa dhinaca kale markii isku did waxaa arkaynaa tooreen labaad nin hooyadiis u imaanaya isbitaal ku jirto xanuunsan waxayna weydiinaysaa waxbarashadiisa u tahay waxaan niraysaa raacay mootodas asna hooy walwalka iska daaya ayuu dhahay waana sameynaa midaas waxaa arkaynaa toora abiis inuu imaaday maadaama uu maal qaban yahay isbitaalka weyn isku arkaya meesha dhan kale tirisha walaashan waxay dhahaysaa maanta buug ayaa akhrisanaysa wuxuu dhahay tartan ayaa u baahan inaan ka qayb galo dhan kale waxaa arkay tirishada hoodeed waxay ku dhahaysaa mar walba makeup sida loo marsado lee taqaana tirishada waxay dhahaysaa hooyo xayawaanada xataa caruurtooda way jecel yihiin waxaan arkaynaa iyada qol ku jirto waxayna dhahaysaa walaalkeed wuxuu dhahay waa kuu keeni koofiyada iyadana waxay dhahaysaa fulxumada darteed ayay nacabtay hooyadeeda sawirka ay silma filaana ku arkaysaa wayna iska naxsaa dhan kale asxaabtii dhiw jiray siimiya ayaa arkaysa loo fayeen u saaraysaa tirishadana waxay dhahaysaa waxaa jira dad ay jecel weli waxaan soo hadlayaa toora wuxuuna soo dhahay buugii soo qaad meesha maktabada iyadana waxay bilaabeysaa inay soo doonto laakiin roob ayaa silan filaana ku da-ayo iyadoo lasoo ordays waxaa arkayna nin ayay ku duldhaceysa waxayna dhahayn dhoola maatay okyaalaha maxaa u wadataa weli noocyadan ayaa magaalada iskaga soo daanaya foolxumada dadka xataa ma qabta oo malaynaya ayay dhahay iyadana waxay bilaabeysaa inay ka burwato waxayna soo aadaysaa tooraha wuxuuna dhahay dalladaada awiyadana waxay dhahaysaa makuu doona hadda makuu soo qaada dallada ayay dhahaysaa wuxuuna dhahay maxaa kugu dhacay iyadana waxay dhahaysaa qof sir lagu qarsado ma tihi dadka ay caayaanna waxa ma dhaantid ayay dhahaysaa asna wuxuu dhahay hanta ii fariisa waa kuu soo laabanaya waxaan soo aadaya farmasiga dhan kale waxaa arkaynaa tooraha saaxiibkiisa mise tooreen labaad inuu arkaya meel kore uu ka arkaya tirishadii tooraha inkastoo tirishada sii jeedo tiri toorahan wuxuu lugta ka dhahaya tirishada waxaa arkaynaa toora wuxuu soo xasuusnaa waxyaabihii ugu horeeyay waxyaabihii tirishada la dhahday wuxuuna bilaabay inuu ka shalaaya midaasiiti una karaargelinaya midaas waxaa arkaynaa tooraha saaxiibkiisa misena tooreen labaad wuxuu galaya xasuus maalinkii uu dhimanaya saaxiibkood saddexaad barayaasha dhan waxay rabeen inay ogaadaan wax lagu soo eeday inuu run yahay kale waxaa arkaynaa tooreen labaad wuxuu dhahay intay aadaysa wuxuu dhahayaa tooraha ayaa aadaa si uu ii aamin wax walba inuu sheegay ayaa raba waxaa arkaynaa dantacsiisa inuu imaanayo wuxuuna dhahayaa siyool ma dhimantay ayuu dhahayaa aad ayuuna ugu murugoonaya xasuusta ayaa kasoo laabanayna waxaa arkaynaa subaxii dambe wuxuu imaanaya iskuulka wuxuuna arkaya koofiyadiisa in loo keenay waana la garaargelinaya muddadii waxayna garaargelinaysaa muddadii ay ka haystay tooraha labaad wuxuu imaanaya tooreen wuxuuna ku dhahay saaxiibkeena uu dhintay adna waa faraxsan tahay miya la-aantiis wuxuuna soo aadaya tirishada wuxuuna dhahayaa waa isla wada qadaynaynaa ayuu dhahay toorahana wuu imaanaya waxayna isku bilaabayn feer waxaana loo wadaa dhanka iyo xafiiska maamulahan wuxuu dhahayaa tooreen labaad waxa u maqnay hooyadii ayaa muhiim marsi ayay ka ahayd miya waxaa rabtay inay fanaan noqdo laakiin gaagistar ayaa isku bedelaysa ayaa la dhahayaa dhankan waxaa arkaynaa Sejun waxayna dhahaysaa sababta tirishada darteed ma isku dagaashan ayay dhahaysaa wuuna iskaga tagayaa asxaabta iskuulka waxay bilaabeen inay dhahaan labadeed dhan darteed ayay isku dagaalmeen u imaana labadood kala doora ayay dhahaan iyaduna waxay dhahaysaa waxaas ma jiraan ayay dhahaysaa saaxiibteen waxay dhahaysaa waxaas ma jiraan dee waxaas ma jiraan waa dhaaf ee ka taga ayay dhahaysaa saaxiibteen waxay dhahaysaa quruxda darteed ay waxaana u dhacay ayay dhahaysaa dhankan waxaa arkaynaa tooreen labaad saaxiibadiisa inay toora koowaad ay soo wadanaya waxayna dhahayaa saaxiibkan ayaa la dagaadhaysaa miya ayay dhahaan laakiin toora labaad uu imaanaya wuuna ka celinaya waxaa imaanaya maamula wuxuuna dhahay mar labaad ma isdagaalaysiin waxaana lagu ciqaabaa inay tirtiraan iskuulka tooreen koowaad wuxuu dhahay waxaas dhan waxay ku dhaceen silshil ah wuxuuna dhahayaa tooraha labaad waqtiga marsiyada waa la dhaaf ayuu dhahayaa bastriyo ayuu dhahayaa waxaa arkaynaa tooreen xasuus ayuu galayaa maalinkoo dhintay saaxiibkood ama siyool waxaa arkaynaa habeenkii inuu dhahay hadda soo celi siyool ayuu dhahayay wuxuuna kasoo laabanayaa xasuusta wuxuuna soo aadaya dhanka iyo maktabadda waxaa arkaynaa xasuus jiraantiisa ayuu galaya imaanaya isagoo weli murugaysan waxaa imaanaysa tirisha waxay dhahaysaa buug leewa oyni buug marka murugootaydeen waxayna isku dayaysaa inay ka qoslisiiso xasuusta ayuu kasoo baxaya tirishada ayaa u imaanaysa waxayna u keenaysaa biyo waxayna dhahaysaa waxyaabaha qaar dhacaya wax iska caadahna u bixin ayay dhahaysaa inii walaalkii xitaa sidaas ayaa isku dagaalna hooyn waxay samaysay cijir ayaynu dhiibtay cijir ayaa iska jirna wax ku jeclahay isdhahna ayay dhahaysaa dhankale waxaa arkaynaa toora wuxuu dhahayaa hooyo kaablaan dhibkaasoo dhan ayaa ku qabta iyadana waxay dhahaysaa haa isna wuxuu dhahay muu malaya midaas dhankale subaxii dambe ayaa la gaarayaa tooreen labaad wuxuu dhahay adigii iyo tooraka wax ma idinka dhexeeya ayuu dhahay iyadana waxay dhahaysaa maya ayay dhahaysaa waxaa arkaynaa tirishada walaasheed waxay
سويسي معناها وحين ديسا وفرصة كلا يقصينا سوحي تنبايا القارة وحاركنا إن حسابات لو كعنا تريشين سبت وكنا سلكين طورا يويتني ساعة ونتسنا معاونا وسكيل صوتها طورا لوضع يكو قصلا ساقايا حسابت لو ديوا مع المتسوق عاي ديسا تريشين اسكسو فريسنيسا أنكل وحاركنا يديسا تريشين صاحبتي سلجنا وحيومانا طورا وحين ديسا سيجون هوي هدي iskuulka ay la gashay way ogolaanaysaa ay dheesay inuu isna u diiday waxa arkayna tirisha saaxiibtida inay bareys waxaan dheesla markaa ay siwiil ayaa ku barayeen hayay dheesa waxaan soo raacay baskiin waxay dheesaan intay u socotaa isna xuraa maktabada waxa arkayna tirishada inuu la soo hadlaa wiilka datinka waxaan dhahay waa kulmayna isna tooraan wuxuu dhahay haddii aan aad israacni ka waran laakiin iyada muu jawaab la socda baarti kala baay